waxa Itoobiya gashay waxay la mid tahay Masar oo la heshiisay gobolka Amxaarada kala heshiisay biyaha Nile ama waxay la mid tahay wadan kale oo la heshiisay wadan kale gobol kamid ah marka caalamka meel hor uga dhacday ma jirto mana filay inay jirto cid qalad noocaas oo kale taa ku babar istaagaysa Itoobiya talaabooyin fara badan oo noo qoran ayaa jira oo hadba aan ku cabirayno talaabada ay qaadaan talaabo la mid ah ama mataqaana mid u dhiganta oo la xaddi ah inaan qaadno ayaan dhaxis maqamar baan la socotaan dabcan inay wafud soo diraan Hargeysa oo aan soo dirina Joojiya oo ay ku adkaystay inay soo diraan isla markii waxaan amarnay in hawada la xiro laga joojiyo dhammaan diyaaradahooda within 15 minutes am 15 daqiiqo gudahooda waxay ku qasbanaadeen inay dib u celiyaan diyaaradii waana diyaaradii u dambeysay oo ka soo kacday Hargeysa ee aadsaw xamar soo aada marka laga reebo diyaaradaha baasijeeriga oo dadweynaha Soomaalida ay raacaan marka talaabooyin ku haboon iyo noo wada qoran diyaar uma ay halka inaan ka sheego laakiin talaabo kasto ay qaadaan mid u dhiganta yaan qaadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wararka aan helayno in heshiisku sidii hore uu ahaa aysan ku socon karin ay aamineen ay doonayaan inay wada hadal la yeeshaan dawladda Soomaalida oo meel badan ay noo soo mareen annaguna go'aanka iyagu ahaa inaan la hadlayn ilaa ay cadeeyaan inay ka noqdeen mataqaana ay sheegay heshiiska hore marka dawladda Soomaalida wali waxay ku adkaysanaysaa heshiiska hore ee qaldanaa guracna in laga noqdo kadib dawladda Soomaaliya dawladda Itoobiya arrimo la xiriiray isticmaalka dekado iyo ganacsi waa ka wada hadli karnaa sida Itoobiya ay u isticmaasho dekada Djibouti Uganda ay u isticmaasho dekada mataqaana Mombasa wax waa u furanahay mataqaana inaan kala hadalno amba hada Berbera amba hada Kismaayo amba wax la mid ah laakiin wixii ku qoran MOU-gu ahaa dhul iyo xero ciidan iyo dekad la lahaanayo dawladda Soomaaliya diyaar uma aha in arrimaha noocaas inay cidna kala hadasho yaraatee dadaalo toos ahna waa jireen isku dayo toos ah waa jireen isku dayo wadamo kale ay kamid tahay Uganda ay kamid tahay Mareykanka ay kamid tahay Ingiriiska ay kamid tahay African Union inta way jiraan laakiin mar walba waxa hortaagnaa caqabad ku ahaa inay marka hore MOU ka noqdaan tii ayaan weli taagan marka waan rajaynaynaa in xal loo helo